qabyaaladda ilaa yawmina hada waa ku sheegay fiiri farmaajo meesha iska halaysan ku sheegay farmaajo waxaa la jira dadaan annaga ilmaadeerna waxaa ka soo horjeeda kuwa isaga ilmaadeer yihiin waayo qabyaaladu qarankaa la isku haystaa dalka aragtiisa la isku haystaa shaati uu leeyahay farmaajo dalka inuu noqdo diyaar uma yihiin aqbalo macallin ma sidaan baa kuu dambaysay nin sharaf iyo karaamo akhlaaq badan baad ahayd caawisa qoryaha hala qaato maad leedahay caawa wixii aadna bari jirtay mise warkaagu waa khud cilmi watruk camali oo ah cilmigayga qaado iyo camalkayga ka tag saas miyaa macallinka markaan ahayna horta waa sheegay soo ma uusi sheegin inaan macallinka markaan ahay nin akhlaaq fiican ah sidii aan akhlaaq fiican ah horta laakiin waxaan kuu sheegaa akhlaaqda fiican waxaa ka mid ah kibirka iyo gardarrada in la iska diido kelmadda aad ka tiraahdo boqor kibirsanna waxay ka mid tahay waxyaabaha fiican xaqa inaad ka aamustana waxay kaa dhigaysaa shaydaan dhagala aniga waxaan aaminsanahay dalka Soomaaliya hadda maanta waa laga yaabaa aan loo jeedin maalin dhaxdaas beejka bisa akhrisatay muxaadarooyin badan jeediya waxaa ka mid ah inaan eri war hadda diktatoriyadda markay samaysmayso dadka jooga ma fahmaan dadka la jooga diktatoriyadda ma fahmaan diktatoriyadda markay samaysmayso si nice ay ku samaysantaa si fudud ay ku samaysantaa diktatoriyadda samaysmaysa ee dalka Soomaaliya ka samaysmaysa dadka iska diiday oo hor istaagayaan ku ka isuujid qaldan buu marka yaani inaad intaad mesela qof intuu ku eejiyo markuu eegada kaala fuqo ku kira wallahi ka waran horta od neefsato ka waran horta inaan neefsato kuma ogolaanay hadda explanation-ka dadka Soomaaliyeed la saynayo waa saas camal farmaajo magaaladu eejiyay muqdisho eejiyay dadka Soomaaliyeed eejiyay markii oo dadku ay sidii oo isaga fuji karaan baa eejada isaga fujiyeen wuxuu shalay la yimid muqdisho waa jeclahay muqdisho haduu jecel yahay habeenada qaxayeen hooyooyinka oo soonka ahayd oo afurka ay sanaysanin oo ay hadlayeen iyo horta u tanaasuli lahaa kuwa difaacyada ka qotay xaafadaha howlwadaag siigaale iyo hodan waa madaxweynaha amray inay sidaas sameeyaan ciidamada isxilqaamay ahaayeen waxay diidan yihiin sharci darrada waxay diidan yihiin xukun maroorsiga waxay diidan yihiin taariikh madow oo aan hadda ka hor soo marnay in loo laabto waa amaanan yihiin ciidamadaas weerarna ma aysan ahayn yaa lahaa amarkooda yaa amray ma wixii amar meesha iska dhacay wixii weerar ka dhacay farmaajo mas'uulka ah hadda waxaa kubadii hortaala ama gacanta ugu jirta ra'iisul wasaare Roble ma ku qanacsantihiin ma u aragtaan ra'iisul wasaare ka soo bixi kara mas'uuliyadka loo dhiibay amniga iyo doorashada aniga waxaan qabaa ra'iisul wasaaraha fursad jalsi hadda bilow ah asaga waxaa laga rabaa inuu mas'uuliyad muujiyo asaga waxaa laga rabaa dalkan runtii waan ku mahadsan yahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ninka amaanan oo extension iska diiday oo colaadda iska diiday oo aan laakiin sharxin ummadda la soo hor istaagin xalay wuxuu sharxay oo ra'iisul wasaaruhu marka waa ku mahadsan yahay madaxweynaha laakiin nafa ka daba keentay markii madaxweynaha galmudug iyo madaxweynaha Hirshabeelle iyo ra'iisul wasaarihii ay dhaheen enough awal Soomaalida kala ku diidaneed annaga kula joognay inay wixii waa xumaadeen dadkana in la xoogo ma qabno raali naga ahaw horta markaas khudbadiisu timi laakiin dhanka kale waxa uu sheegay in siyaasiyiin dan leey ah waliba ajaanib ku xiran ay ka socon weysay sidaas daraadeed uu tanaasulayo baarlamaanku ku soo celiyay maanta wixii laga dambeeyana uusan aqbalaynin in caqabad ay ka timaado arinta ajaanibta horta wax baasaboor ajnabi haysta farmaajo asaga ka jira anaga baasaboor ajnabi anaga ma haysan ma arinta ajaanibta rabaa inaan kala hadlo number 2 waxa marqaati ka tahay farmaajo kambiingiisa inuu Nairobi ka soo galay hal bil soo xamar joogaana la doortay wiligeena anaga ku caayayna ma ana arag horta madaxweyne dadka caayay waa madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday madaxweyne ku sifoobay wax la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa mahadsan yahay magacu noogu bixiyay CBB baraha bulshada in laga caaytamo dad caaytamo asagoo oo lacag siiyo iyo asagoo caaytamo intaas oo marasoo caaytamayo oo madax caayaya oo dadka caayaya hadda waxa ay sheegaysana waa caay uu ka laabtay tii dhalashada New York Times magris wuxuu uga laabtay markii investigation baaritaano dhaqaale lagu furay sheegtay New York Times journalka ku qorantay waxa kale warar ah sheegayaan inuu mid kale deysay ku dhawaad 100,000 oo qofood Soomaali ah mas'uuliyadda qaxaasiya iska leh farmaajo sida extension waxay ku tahay wadanka Soomaaliya Sheekh Shariif xilka wareejiyay Xasan Sheekh xilka wareejiyay habeen dhaweed Cabdiraxmaan Cabdishakuur la joogo saaxiibkay way muddo dheeran saaxiibana ana waagi election ma ciidan ay sidaas afaran shanan haysto yiri afar horta farmaajo iga dilay 17 December 2017 afar laga dilay horta hadda ma qaaysataan 100 qofood xataa ugu fulo
meeqo haystaa hadda cabdiraxmaan ilaa habeen walba gorgora ku soo weeraraysa haram cadaa ku soo weeraraysa inta laga soo weerara yaa lagu hayaabe waxa allaale wixii qaraabadiisa waxa la wixii heli karo heli meeqa dhan yihiin ciidamadaas konton 60 70 100 wixii uu heli karo waa inuu raadsado fiiri wadanka meeshaas yaa gaarsiiyey 19 February labadii madaxweyne ee xilkan ka guureysay ee mid ra'iisul wasaaraha ka dhigay yaa weeraray beebayaasha dawladda Turkiga oo annaga aan saxiixnay heshiiskooda u barinay oo dawladda Soomaaliya lagu qalabay yaa ku soo weeraray aawe nimanka siyaasiyiinta aad ka mid tahay adiga ee magaalada isu kala qaybiyey oo yiri nin walba xaafad uu ka soo jeedo dhuufaysa ka qof maya horta meeshay ka timidaan ku sharxaya from 17 December 2017 19 February 2021 mudaharaadkii aad aragto ra'iisul wasaarihii 3 sano bar la shaqeynay Abdiraxmaan Abdikuur madaxweyne Abdikariim Guuleed aniga aad ogeedo dhashiikaana la ku shubay intaas markii la sameeyo adiga meel inta fariisataad marka ilmaha markii la waxa jiray aniga gacanta ma baruur ku haystaa niyo meesha ma dagaalamaysaa maya difaacu nafsiga diinta qabta dadnimada qabta qaanuunka qaba wax walba qaba difaacu nafsiga hada dagaal u taqaan wax badiil ah oo qoriga caaradiisa aan ahayn ma weysin mudan hadii 2 sano xoogan kugula joogaa dhashiikaha korkiisan kugula joogaa iyo beebaha gorgor ay wadato ay intibaado actionka ka iman kara maxay runtii saxaafadda madaxa bannaan kula talina dictatorship dadka oo arfinin dictatorshipku maanta waa laga yaabaa inuu kelimadaas macsuulka oo malabka ku maran yahay oo dadku isticmaalo nabadaan idin rabo nabada hadduu rabo xukunka iska wareejiyo ma dhabaa in inta madaxweyne cusub laga dooranayo ciidamadaas ay ka bixi doonaan degmooyinka gobolka Banaadir aniga ma dhihintaas ma dhihin arrintaas arrin siyaasadeed waa hadii siyaasadda laga heshiiyo ciidamada wax dhib ay qabaan male arbay dhib noqotaa sidii muqdisho ayaga naftirkooda looga badbaadin lahaa maadaama aad sheegtay dhowr talo inay leeyihiin taliya aragtida la burbugaanayo ah ciidamadan cid ay dhib ku hayaan male ciidamada hal qof oo dibadda laga keenay kuma jiraan magaalada ay joogi jireen taliyihii booliska gobolka Banaadir 4 sano la soo dhaafay miya aniga waxa rabaa inuu ii sheego farmaajo dadku qaxinay kooban maxaad ka aaminsan tahay saadaqjoon horta 4 sano inuu nidaamka la shaqeynay adiga waa ogtay laakiin qof walba Soomaaliya 4 sano inuu farmaajo dhamaysto waa loo adkaystay 4 sano markay dhamaatay inuu xoogan idin kula jooga war macquul ma ninka waqtigiisu markuu dhamaado waxa la rabaa dhuubni inuu uga baxo madaxweyne Sheekh Shariif iyo madaxweyne Xasan Sheekh oo ogtahay deegaan ahaan iyo dad ahaanba ciidan inay heli kareen waa inay heli kareen yaa intay teendhada geeyeen ayagu lagu orinaya laga soo baxay qofka inuu adkaystaa la siyaasadda waxay rabtaa dimuqraadiyadda lagu sheegaya waa inaa aqbali karto guusha waa inaa aqbali karto guul darrada Saadaq John nidaamka markuu la soo shaqeeyay 4 sano dhamaatay wuxuu yiri 4 sano waa dhamaatay extension ma ogoli korkeygana lagu sharciyeena waa ku mahadsan aad iyo aad ugu mahadsan yahay nidaamku waa beegsaday waa la soo beegsaday markii la soo beegsaday aniga xildhibaankiisa waa inaan difaaca qaar ka mid ah siyaasiyiinta oo waliba madax hore ay ku jiraan waxay gaarsiiyeen inuu yahay gees ama hero Saadaq John maadaama go'aanadaas uu qaatay taariikhda sheegi doontaa aweyso taariikhda waxay sheegi doontaa keligii taliska maalinta iska badbaadinay oo la hor istaagay rag hor istaagay magac u bixin lahayd Saadaq John ma nin raga way magac waa leeyahay Saadaq Alira waa nin raga ma eriga loogu yeeray dad baa yiri waa geesi ma waa fiicanta waa inuu geesi yahay hadduu si geesi yahay ma meesha aragtay maalaha dad badan marqi iska cabayo wali oo farmaajo leeyahay ana badar idin siinay ii joogay laakiin dhanka kale 4 sano ula shaqeynayay madaxweyne farmaajo aad ba loo dhaliilay sharci anaga kamid dadka dhaliilay laakiin sharciyadu haystay nidaam uu shaqeynay nidaamku waa dhamaaday nidaamku markuu dhamaaday way ninka hadda meesha ku shaqo taagan laakiin waxa jira fayl Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ku dacweynayay Saadaq John oo ahayd inuu ka dambeeyay askartii ilaaladu ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur dilkooda oo Cabdiraxmaan uu sheegay kabahooda in la aas miyuusan ahayn ninka dambigaas la miyuusan ahayn maxkamada la rabaa inay qaado inay furaato fayl siyaasadeed ma aweyso that is problem meesha ku jiro meesha Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu u yahay dambiile ka dambeeyay dilka dhalinyaradaas adigana wuxuu ku yahay geesi badbaadiyo gobolka isku dhaf waxaan islaynaa isku dhaf ها يعني الحابل بالنابل اللي هذا بعربي اويس ورئيس اوسيبيو هذا ما ورثت عبد الرحمن شكور بس عبد الرحمن شكور واحد دفاعي هي موقف كيس نو شيء عبد الرحمن عبد الشكور يعني كل هذا حنسجل موقفنا ان صادق جون للدفاع arrinta feelka caaw arrinta kama deetorto aweyso arrin siyaasadeed ma arrinta siyaasadda Saadaq John iyo Cabdiraxmaan Shukuri iyo aniga iyo maraygu murashaxiinta maanta isaga mowqif aan
waxaa soo haray arrinta maxkamadda qofkii rabaa maxkamadda dacwadeeda waa u furan tahay nidaamka farmaajo shalayna diiday maxkamadda dacwadeeda oo ogta kiiskaasina sidiisaba Saadax John kuma dhamaado dadkii soo amray tagaa meelo ka fog tagaa waxba hadda baarideeda ma aha waqtigeedii lama joogo laakiin aan ku sheegaa Saadax John wuxuu iska diiday dulmi iyo extension iyo xoogan kula jooga iyo adiga dadka i caburo waa ku mahadsan madaba in beel ahaan aad ku difaacaysan Saadax John nacam ابني بلهنا كنت فاعل اللي بان ديسان به انا قلت كرسي انكو فدي بيل سو كو فدي كرسي ما حنكو فدي عويسو يجي جواب بليز ما حد كو فدي كرسي ما حنكو فدي 4.5 adiga beelahan yaa ka soo jeeda jufa ayaa ka soo jeeda aka cishoonin qayb ma lehe ma qosaysan barnaamijkeena ee waxaan rabaa aniga jufa ahaan xildhibaana kugu jira baarlamaanka inaad iga jawaabto kaliya waxaan ka rabaa ana ma beddelay waxaad u difaacaysaa Saadax John beel ahaan nacam ama qaldanada ama saxsan meeshaas waa qalad marka taasa gal asoo qaldan anu difaacay kan ama sharaxda farqiga u dhaxeeya qarannimo waa isku dhafan yihiin qabiilka ana ah qarankan aniga ah sidoo kala saari kartaa adiga nin Saleebana ma tiid ma dhigi kartaa nin Saleebana ma tiid waxaan ku faraxsanahay macallin jaamacadeedna inaad tahay fiiri waa aweys waxbarashadaad ka soo gashay siyaasad nin Saleebana ma tiid ma dhigi kartaa maanta hal la ogaadee farqiga u dhaxeeya qarannimo iyo qabiil ma fiiri military siyad bar markuu wadanka yimid laba arrin oo aad u muhiim u la dirsanay si uu la dirirana narrative u sameeyay waxay insaanka Soomaaliga system dimuqraadiga oo la sameeyay 60 jiri systemka sida kan maanta aan ku joogno horta dadka qabiil ay cod ka doonan jiray ama ceel dheer cod ka doontaan ama ahar dheer cod ka doontaan ama beledweyne cod ka doontaan waa ogtahay insaanka Soomaaliga deegaankiisa iyo qabiilkiisa waa isleeyihiin beledweyne marka tagto qabaa'il degan militariga marka qabaa'ilka Soomaalida maadaama xildhibaanada lagu soo dooranay wuxuu isticmaalay waxa la yiraahdo qabiilka waa jubli qabiilka markii la duubay maxaa ka dhacay dalka Soomaaliya waxaa ka dhacday qabiilkii ugu badnay suuqmaasuqii ugu badnay awood sheegashadii ugu badneed qabiilka unsur akhaka zaliman aw madluman wa ayad haduu gardaran yahay dadka ka celi hadii laga gardaran yahay dadka ka celi asaga celi haduu gardaran yahay marka fiiri arrinta ku saabsan qabiilka iyo qaranka Soomaaliyeed isma diidana dawladaha hadda Kenya dawladaha dariska nala Kenya iyo Djibouti iyo fiiri nationka iyo jufada iyo qabiilka iyo qaranku way isla socdaan inay isdiriraan waa fake say isku dirirayaan fiiri adiga say dhigi kartaa baarlamaanka Soomaaliya oo 4.5 lagu fadhiyo hawiye iyo daarood iyo dir iyo digri mirifli iyo beesha sanada lagu dhex fadhiya baarlamaanka qarankiisu baarlamaanka ma qabiil lagu dhex fadhiya kala saar bal adiga weyso isma diidayaan fiiri fakeness ka waa wax isdiiday qabiilka beenta ah ee mesela Maxamed Cabdullaahi Farmaajo tooyir qabiil waa diiday ee kulana jiis oo ugu yahay nabad sugid u joogo oo isaaq hebel biixi ninka leeyahay oo ugu joogo militariga oo wasaaradda arrimaha dibadda oo balal u geystay oo asaga oo madaxtooyada u fadhiyo qabiilkaas waa horta marka aniga marka waxa rabtaa double standardka ka dhaaf qabiilku waa wax jira waa reality Soomaaliya ka jirta waxaana la ka rabaa realitygiisa inaan la macaamilo soo noqotay wasiir arrimaha gudaha xildhibaan laba teeram ah ma hal teeram hal sano ay weeyeen hal sano ku weeliyeen waxaad ku shaqeynaysaa maxay ahayd ma aragti qabiil mise mid qaran isma badiidana qalbi dhagax marka difaacay qabiil ma nahay qabiil ma nahay qalbi dhagax mani ani qalbi dhagax isku reer mani Farmaajo ay isxigaan iska kay xigaan yaa dhiibay oo u dhiibay Ethiopia dadka ka difaaco u istaagaan ah oo xaqiiqo sheegay maalintii barkaday aan qalbi dhagax difaacayana waxaan ahaa wadani Saadax John iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur markaan difaacayo ana qabiil ah that's the problem laba sano oo wasiir arrimaha gudaha ahayd waxaan daawaday barnaamij SNTV lagu marti qaaday maalin oo dhageystayaasha loo furay iyo daawadayaasha baraha bulshadana su'aalo laga soo weydiiyay hal eray oo ama beel ah ama qabiil ah kuma jirin hadalkaaga waxaad ka hadlaysaa qarannimo waxaad ka hadlaysaa horumar waxaad ka hadlaysaa dawladnimo waxaad ka kaabin inta baan gaabay horumarka Soomaaliya waxa ilaalinayo leeyahay laba sano extension ka xaaraanta hal diido beenta hal diido fakeness ka hal diido qabiilka beenta fiiri aweyso oo laga dhaadhicinayo leeyahay qabiilku waa midka hadda kursiga raba inaa u doonto hadda raba xildhibaan inaa doonto soo reerkii ma waxa u doonanay marka waxa la raadday discussion kaaga aweyso discussion maaha oo question and answer maaha
waa inaa waqti badan ku bixisaa leanno dee waa question philosophical question ay weydiinaysaa waxaana rabtaa ha iyo maya inaan ku jawaabo isma qabato